kulanti waxaana wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo joogtaan halkani waa damal media kuna soo dhowaada barnaamijkeena warogaal barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa xukuumadda Somaliland oo dib u dhigtay hirgelinta cashuurtii GTS-ka iyo Mareykanka oo weeraro culus ku qaaday dalkaasi Iran bal aynu ku horeyno xukuumadda Somaliland ayaa dib u dhigtay hirgelinta cashuurta GTS-ka ee loo yaqaano Goods and Service Tax kadib markii ganacsatada dalku ay si weyn uga hor yimaadeen qorshahaasi ah in cashuurtani ay dhaqan gali doonto wixii ka dambeeya 11 Julaay ee sanadkan ganacsatada ayaa si weyn uga soo horjeestay arrintaasi waxaana ku tilmaameen mid aan iyagu inaanay ka tabarhaynin macaamiishooda iyo waliba ganacsatadu waxaana sidoo kale ku doodeen inaanay furi doonin meheradahooga marka la gaadho wixii ka dambeeya 11 bishan Julaay kadib go'aankaasi ka soo baxay ganacsatada yaryar ee magaalada Hargeysa xukuumadda Somaliland iyo ganacsatada ayaa isku tagay kulan waxaana soo saartay xukuumadda go'aan ah in dib loo dhigay cashuurta GTS-ka ilaa iyo la gaadhayo bisha August 1 markaasi oo dib loo bilaabi doono cashuurtaasi geesta kale xisbiga mucaaradka ee ka ayaa sharci darro ku tilmaamay cashuurtaasi isagoo sheegayna inaanay xukuumadda Somaliland soo marinin hanaankii loogu talagalay ahaa in la soo mariyo baarlamaanka cashuurtanina ay tahay mid sharci darro ah xisbiga ka waxa uu sheegay in xukuumadda Somaliland markii mucaaradka ahayd ay ku ololeyn jirtay inay daryeeli doonto dadka danyarta balse iyadu uga dartay xaaladda halkay maanta taagan tahay talaabadan xukuumadda Somaliland ee hirgelinta cashuurta GTS-ka iyo diidmada dadka ganacsatada ah iyo mucaaradka Somaliland ayaa imanaysa xilli ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin dadka iyo ganacsatada ahi iyagoo sheegayna ganacsatadu inaanay arrintani mid ay qaadi karaan ahayn maadaama oo aanay dadku bixinaynin cashuurtaasi iyaguna aan laga jari karin cashuurtaasi maadaama oo aan dadku ku qasbi karin inay iyagu bixiyaan cashuurtaasi dhanka wararka dibaddana waxaa ka mid ah Mareykanka ayaa weeraro culus ku qaaday dalkaasi Iran iyadoo dhawaan ay dhex dhigay xabad joojin waxaana burbur ku sii dhow inay dhammaato xabad joojintii labadaasi dhinac la dhex dhigay iyo heshiiskii ay gaadheen oo noqday mid aan fara badan ku taagnayn Iran ayaa iyaduna jawaab adag ka bixisay weerarkaasi Mareykanka ku qaaday dalkaasi Iran waxaanay weeraro ka fuliyeen oo ku qaadeen magaalooyin ku yaala dalalka Bahrain Imaaraadka iyo Qatar xubintaasi ayaa saaxiibayaal ugu dambeysay warkii Damal Media wixii warar soo kordha waxaynu ku daawan doonaa wararkeena dambe